culimada ka qayb galaya shir sanadeedka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika oo soo gabagabeeyay muxaadarooyinkii ay ku qabanayeen magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria ayaa gaaray qaar ka mid ah gobolada kale ee loogu talagalay inuu ka dhaco mu'tamarkan. reer Rustenburg dhammaantiin waa idin salaamay. Allah idin barakeeyo. dadaal wanaagsan baa muuqda oo qabateen. aad baan ugu faraxsanahay midhaha iyo thimaarta meeshan ka muuqata iyo ubaxan aad soo saarteen. taas waxay ku timid fadliga Ilaahay kadib subxaanahu wa ta'ala dadaalka aad samayseen iyo isku duubnida aad isku duuban tihiin oo tihiin jaaliyad midaysan oo runtii aad mudan tihiin jaaliyadaha kale ee waddankan ku nool Soomaalida inay idinku daydaan. kudayaashaad mudan tihiin in la idinku daydo. musaabaqaadka tartanka quraanka markii goboladu isugu yimaadaanna waa ogahay marar badan inaad qaadeen oo safka hore aad tihiin. waxaa soo dhan fadli Ilaahay idin siiyay weeye. thumma kadib wanaaga iyo dadaalka iyo midnimada aad haysaan weeye. taa iyada marka waxaa muuqata iskaashiga isaga oo sameeyeen waa kii Ilaahay in amray subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. isu kaalmaysta waxyaabaha wanaaga iyo khayrka sameyntiisa iyo xumaanta oo laga tago isu kaashada. ha isu kaashanina dambiga iyo xadgudubka ha isu kaashanina. taa iyada midda muslimiintu runtii ay mudan yihiin gacmo waxaa la yidhi wada jir bay wax ku gooyaan. haddii aad sidaa insha Allah ta'ala ahaataan meel weyn baad gaari doontaan biidhnillaahi ta'ala mustaqbalka dhow. annaga iyo jaaliyadaha kalena waa idinku dayan doonaa biidhnillah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkaas ha idin ziyaadiyo iyo wanaagaas. kulankan oo la qabto sanad walba dabiyaaqadiisa ayaa ah kulan loogu talagalay baraarujinta diinta islaamka iyo waajibaadka ka saaran dacwadda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayay culimada mar walba ku booriyaan inay midnimo yeeshaan bulshada Soomaaliyeed. tan shanaada idinku dardaarma idinku soo gabagabeynaya waxay tahay waxa waaye walaaltinimadiina muujiya isjeclaada hal iscafiyo business leader tartana ka dhaxgalay sax waaye. hal waxa idin sheegay dad kasto isku business tartana dhaxgalay. dadka injineerada tartana dhaxgal nin engineer nin doctor is qabsada ma arkaysid because two different job ay kala shaqo isku malaha. dadka qof kasto isku shaqo waxa dhaxgala tartana gal ibn aadankan way ku jirtaa dabeecadaas oo mid walba wuxuu rabaa inuu asiga muuqdo inuu asiga sareeyo raba. laakiin ogow adduunyo waa laga taga. waxa loo baahan yahay walaalka hal gooynin walaalka dhibaato ha gelinin. waxyaabo qaarkood oo la sheego qofka in oo businesska la faliso markuu $1 gaday dhinaciisana $50 gada xaraam waa. waxaa ka sii daray in dad loo soo diro businesska laga guba ama la dilo xaraam waa. walaalka caawi wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. walaaltinimada hal la muujiyo wadan banaana joognaa hal gacan aan noqono aan isjeclaano aan iscafino. Sheekh Injineer Suldaan Cabdiqani Qorane oo kamid ah culimada ka qayb galaya mu'tamarkan jaaliyadda Soomaaliyeed uga socda Koonfur Afrika kana mid ah salaadiinta Soomaaliyeed oo ka hadlay kulan kamid ah mu'tamarkan ee ka dhacaya gobolada Koonfur Afrika ayaa baaq u diray beelo ku dagaalamay tuulooyin ku yaala inta u dhaxaysa gobolada Nugaal iyo Sool. waxaan anigoo ka xun halkan ka soo jeedinayaa murugta aan ka murugaysanahay waxa ka dhacay qaybo kamid ah Soomaaliya oo colaadihii waddankeena halakeeyay oo wali aan laga raysanin 30 sano ka bacdi in qabiil isu laynayo dad gacala oo ehel ah oo is dhalay oo wiil iyo abti ah wiil iyo seedi ah nin iyo seedi ah nin iyo sodog ah la isku laynayo wax mithqaal darratin ah oo runtii ceeb ku ah cunsurka Soomaaliyeed. waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalaha ku dagaalamaya meesha la yiraahdo Sangajabiye iyo Saaxmaygaag in xarbada meesha ka socota ay joojiyaan Ilaahayna ka cabsadaan subhanahu wa ta'ala. dhiiga xurmada leh ee walaalahood isuma banaana. nabiga sallallahu wa sallam alayhi waxa uu leeyahay inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada
في شهركم هذا ديجاجينا شرفكينا مالكينا وإذا كلا حرام ننا نك كلا أنت سوى ما بنانا سيدا يحرمه ولا هذا مكة وذو الحجة يحرمه ولا هذا مالك يوم العرفة يحرمه ولا هذا بان يحرمه ولا هين قفك مسلم كديجي سوا كقيمة بديهاي كعبد ولا دميو marka in loo laayo ama loo dilo ama reerna loo qixiyo min ajli reebel baa ilaahay ka dhigay ama tuuladan bay dhisanayaan annaguna tuuladan baan leenahay iyo waxa weeye tuulada ma dhisi karaan iyo annagu waa dhisi karnaa arrimahaas runtii waa falxumi iyo fadiixa taariikhda galaysa weeye nabigu wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd gadaashay ha u laabanina gaalnimo qaarkiin qaarka kale ay qoorta ka jarayaan waayo dagaalka noocaas ee fidnada ah ee kugu dhimay iyo ka dhimay iyo waxa weeye kugu dun iyo ka dun iyo dhulka kula go'a ninna guul kama qaado dagaal sokeeye malahan hal yey malahan hal game nin lagu faaro bari intuu soo fariista garaada ka tosha ma jiro haddii cid ay garaada ka tolanayso qabqablayaashina soo maray ee adduunka kharibay baa garaada lagu siin lahaa kuwaasaa sharaf ku mutaysan lahaa kuwaasaa bilado ku heli lahaa biladana ku heli mahayaan lacnada taariikhda ku socotay limaada dadkan soo qaxiyay calayhi min allahi ma yastaxiqun ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay ka mudan yihiin ha ku abaal mariyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaaliha uga argudo kuwa maanta ka shaqeynayana ilaahay ka qabto subhanahu wa ta'ala maamulada dadka magacooda ku shaqeeya oo dadka magacooda xilalka loogu dhiibay oo ka shaqeynaya wixii aan loo dirin xil baa ka saaran dadka dhiigooda dadka amnigooda dadka dalka xasiloonidiisa siyaasaddu inay hagaagsanaato xil baa ka saaran xilkaas allana waa kala xisaabtamaya annana markhaati baynu u nahay maanta lafteedana waa laga wada xisaabtamaya sax ma aha inta la gabo xilkii iyo mas'uuliyadii in waxa weeye hadba laga sheekeeyo meelaan ahayn meesha ay shaqadu tiilay sax ma aha dalkii oo burburayo baabaayo in loo tanaagoodo siyaasad aan laga guul gaaraynin sax ma aha in la isku mashquulsanaado ayadoo dadka qaarkoodna ay gaajo go'ayaan qaarna ay colaad u qaxayaan qaarkoodna amni darro ay dibadda u joogaan qaarna waxa weeye ii sheeg dayac iyo duruuf iyo busaarad ay ku nool yihiin waxa loo baahan yahay caqliga inuu shaqeeyo alaysa minkum rajulun rashiid wan wax isku falaya miyaanu ku jirin waxa wadanka ka qaldamay ma aha wax kale waa siyaasadii kharibantay baa wali tan iyo hadda laga raysan laayahay cidda siyaasaddaas qaldaysana siyaasi buu ahaa maanta waxay wax ka qaldan yihiinna waa siyaasi waxa xilkiisi gabayana waa siyaasi haddii la damcay wax lala hagaajiyo midka caroonayo gafurka taagayana waa siyaasi oo waxa lagu doortay iyo mas'uuliyadda iyo amaanadu sidaa ma aha amaanada iyo siyaasaddu waa waxaad u soo oroday oo dadkaas xaaladooda nololeed inaad wax ka bedesho wax u soo kordhiso ugu yaraan aad kala badbaadiso oon la islaynin ahayd in dadka la isku fiirsado marna sax ma aha in looga darana sax ma aha inay xilkooda gutaan baa loo baahan yahay xilka hadaysan gudan karaynin waxa u taala inay xilka ku soo celiyaan ummadii iska lahayd waayo sax ma aha ummadda waqtigeeda in loo lumiyo afar sano iyo shan sano Soomaalida waxa haysata aafa culku gal oo tuugo ku ciidmisay noocaas oo kale inay noqdaan siyaasiyiintu ma aha dalkan in loo naxo baa loo baahan yahay dadka culimada ah dadka waxgaradka ah dadka aqoon-yahanka ah dadka isimada ah ayaguna xil baa saaran xilka saaran waxa uu yahay howlahan markay taagan yihiin waxa laga yaabaa inay ka badan yihiin gacanta dawlad iyo maamul in la isugu tago la isu kaashado waa ilaahay waxa uu leeyahay وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله isu kaashada biriga iyo samafarka colaytanka iyo dambigan yaan la isu kaashan marka colaada in la dabiyo fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum ilaahi ka baqa dhaxdiina waxa ahaadana islaaxiya ilaahi leeyahay subhanahu wa ta'ala in marka arrimaha noocaasa talaabo degdeg laga qaado oo loo wada gurmado oo waxa weeye qofkii biyo ku damin karo iyo qofkii alla bari ku damin karo iyo qofkii waxa weeye islaaxin iyo dhaxdhaxaadin ku damin karo aan loo kala harin baa loo baahan yahay إلهي سبحانه وتعالى waxaan weydiisanaynaa dalkeena iyo dadkeena inuu islaaxiyo shirsanadaadka jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa inta uu socdo waxa culimada lagu weydiiyaa mas'alooyin diini ah oo ku saabsan dhaqaalaha iyo qoyska maadaama ay inta badan ganacsato yihiin Soomaalida ku nool Koonfur Afrika Mahad Maxamed Sheekh bandhiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika